gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa magaalada Muqdisho caasimadda waddanka Soomaaliya waxa uu ka furay shir looga hadlayo sidii xuquuqdooda ay u heli lahaayeen dad la sheegay in lagu midab sooco dalka Soomaaliya. Wariyahayaga Cabdiraxmaan Waabari ayaa kulankaasi inooga qayb galay warkan ayuu inooga diyaariyay. shirweyne looga hadlayay raaligelinta dadka la heebsooco ama laga tirada badan yahay isla markaana ay si wadajira u soo wada qabanqaabiyeen wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee dowladda Soomaaliya iyo AMISOM ayaa maanta waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. waxaana shirkaasi daafuray gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyadoo ay ka soo qayb galeen wasiiro xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, haween iyo mas'uuliyiin ka socotay saraakiisha AMISOM iyo dadka la heebsooco qaarkood oo goobjoog ka ahaa shirkaasi. ugu horeyn halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Nuur Tarzan. waxa uu ka hadlay qaabka dadkaasi loo heebsooco iyo sida loola dhaqmo. arrintaasi arrin mas'uuliyad qof kasta oo Soomaaliya ka saaran way naaxiyad diiniyana way naga saaran tahay, Soomaalinimadana way nooga saaran tahay, dadnimadana way nooga saaran tahay. waxaan rabaa arrintaas inaan la dagaalano aan ka saarno waddankeena qurunka ka jira ee xaqdiga iyo xasadka ka jira iyo dulmiga ka jira waddankeena inaan ka saarno haddii kale waddankeena bulshadeena weligeed isma qabsanayso, bulshada haysana meel ma gaari karayso. sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay Ismaaciil oo ka socday wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee dowladda Soomaaliya. waxa uu sheegay in marka hore loo baahan yahay in la xalmariyo dadka la dulmiyay, isla markaana waxa uu tilmaamay xilligan ay ka dambeeyay in beelaha la heebsooco uu ku jiro sidoo hadalka u dhigay. waxaan rabaa dhaqanka qabiilka ay xoogga badan ee la isku dulminayo, ee la isku madax yareysanayo, la isku gaabsanayo, ee la isku yasaayo, dhaqan ahaan dhaqan carbeed waa dhaqan xagga carabta nooga yimid yahay amsa laga hadlo sidiisa waxaan afka ajnabiga lagu yiraahdo taabuu waxaan la muday wixii ayuu ka mid yahay annaga aan siinado meelkaale iyo qorshaynta markaan ka hadlayo farsamo ahaan arrintan qorshaha qaranka waa ku jirta laakiin doona ha arko ha akhristo waa ku jirta meelo badan ay ka soo gelaysa annagu ma dhihi karin gaal iyo adoon iyo ma dhihi Soomaaliya ma kala saari karin waxa adduunka laga akhrisanayo aadahana banaanka ma dhihi karin laakiin si dad ban ninkii akhriya waa ka arkaya. kulankan maanta la qabtay waxaan isleeyahay tallaabada horumarka aan ku sheegay inay noqoto kulanka inuusan noqonin wax looga hadlo oo halkaan looga tago. wasaaradaha dowladda naftirkooda inay qorshe ka yeeshaan ummadda Soomaaliyeed iyo wada noolaanshaha. runtii waa waxa lagu faani karo ama aan dhihi karno Soomaaliya waxa Ilaahay siiyey resource ayaga ay leeyihiin oo Ilaahay siiyey oo dadkii xirfadda yaqaanay ama horumarin kara waddan in ay maanta noqdaan dad u dhibaatooda ama qabiilada ama xirfadda ay sameynayaan ama aqoonta ay u leeyihiin waxyaabaha ay qabanayaan. waa wax runtii loo baahan yahay ummadda Soomaaliyeed inay ka fikiraan oo aanan fogeynin wax dhibaatooyin badan noo geysan kara ama dambiyo kale la gelin kara inaan runtii aanan ka dhiganin. ugu dambeyntii halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo sheegay inuu ku faraxsan yahay in shirkan uu ka soo qayb galo, isla markaana waxa uu tilmaamay in diinta Islaamka aysan dhigaynin in la heebsooco beelaha kale. wuxuuna tilmaamay in loogu baahan yahay in dadkaasi la dulmiyay in la xalmariyo sida uu yiri. xagga diinta aan ka hadalno, dhinacna dhaqanka aan ka hadalno, dhinacna aan idhaahno golaha shacabka oo codkii shacabka ah maxaa uu door ku leeyahay arrintaas inuu wax ka qabto aan sidaa u galo. haddii aan dhinaca diinta aan ka bilaabno, rasuulka calayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhi almuslimu aqu lmuslimi laa yadlimuhu walaa yaqdimuhu walaa yacqiluhu. qofka muslimka ah qof kastoo muslim ah walaalkiisa ama walaasha uma banaana, waa ka reeban tahay inuu dhagaro, inuu xaqiro, inuu dulmiyo. marka haddii nabigii sidaas uu ku dardaarnay oo annagana aan yeeli weyno waa arrin iyo rabbigiisa islaamnimadeena iyo calaamad su'aal galaysa arrimaha shirkan ayaa waxa uu socon doonaa muddo 2 maalmood ah, isla markaana waxaa diiradda lagu saari doonaa sidii loogu gudbi lahaa beelaha kale ee la heebsooco. waxaana la filayaa in laga soo saaro warmurtiyeed wax ku ool ah. Abdiraxmaan Maxamed Cabdi Waabari, telefishinka Somali News, Muqdisho.